markaad daawanayso casharada programmingka ma dareentaa inaad wax horumar ah ka samaynay programmingka ama luqadaasi aad baranayso waxaad naftaada u ballan qaadaysaa inaad dhammaystirayso kooraska aad bilowdo balse markaad u fadhiisato si aad kooraskaasi u dhammayso ma dareentaa caajis badan kadibna sidaas ku joojisaa haddaba sidee ayaad u noqon kartaa qof si firfircoon u barta programmingka dhammaysan karana koorasyada uu bilaabo tani waa su-aasha muuqaalkeena maanta kaga hadli doono soo dhawaada dhalinyaro dhalinyaro badani waxay aaminsan yihiin in programmingku adag yahay balse taasi waxaa keenaya inaysan u marin waddada saxda ah marka laga yimaado inaad barato luqadda programmingka ee kugu habboon leefal ahaan iyo ujeedka u barayso programmingkaba waxaa jira qaab loo barto programmingka ama wax kastoo kugu cusub oo aad rabto inaad barato haddaad akhriday bugaagta self-helpiga ama kor u qaada dhisidda caadooyinka wax badan ayaad kuwa ka hortahay waxayna muuqaalkeena maanta kusoo qaadanaynaa buugga Atomic Habits iyo sida aynu ugu adeegsan karno programmingka markaad ku cusubtahay programmingka waxyaabo badan ayaad ka fikiraysaa inaad samayso balse xaqiiqadu waxay tahay waxyaabahaas aad doonayso dhammi waxay ku xidhan tahay hal qodob oo ah joogtiin iyo inaad tallaabo hor u qaado maalin kasta haba yaraatee haddaad dhisato caado ah inaad maalin kasta wax ka baratid programmingka wax yarna ha ahaadee balse ay taasi joogto tahay waxa hubaal ah inaad maalin kasta usii dhowaanayso saad ku noqon lahayd programmer professional ah inaad caado kugu cusub ku dhagnaato waa arrin dhib ku ah dad badan waxaana marar badan dareemaysaa inaadan samaynayn wax horumar ah waxaadna filaysaa horumaro dhaqso badan balse halkaasi waxaa ka dhaca waxa uu qoraaga buugga Atomic Habits ku magacaabay dooxada niyad-jabka waana halka inta badan dadku ku lumiyaan niyadda ay wax ku sii baran lahaayeen ama ku sii wadi lahaayeen caadadaasi dibna ay uga dhacaan haddaba sidee ayaa u dhisan kartaa caado aad si maalinle ah ugu barato programmingka intaan taasi ka jawaabin aynu fahanno sidee caadooyinku ku samaysmaan caadooyinku waxay ka bilaabmaan wax loo yaqaano cue wax ku xasuusinaya inaad shaqadaasi bilowdo tusaale ahaan laptopkaaga ayaad soo dhigatay miiska ama meesha aad inta badan waqtiga ku qaadato tani waxay mar kasta oo kombiyuutarkaaga aragto ku xasuusinaysaa inaad barato programmingkii oo shaqadaasi bilowdo kadibna waxaa ku xiga driving waa inaad haysato sabab cad ood u bilaabayso inaad dhahdo biri ayaan programmingka baranayaa oo aad jadwalkaaga ku darsato uma filna waa inaad si cad u qorshaysaa tusaale ahaan biri markaan soo kaco 30 daqiiqo oo aan ku barto programmingka ayaan fadhiisanayaa oo war cad soo maahan waxaa ku xiga inaad samayso response ama jawaab celin biri marka waqtiga yimaado waa inaad ka dhabayso oo aad fuliso ugu dambayn waxaa ku xiga inaad samayso reward oo naftaada ku abaalmariso sidaa u dhammaystirtay waqtigaasi oo naftaada siiso waqti aad ku samayso waxyaabaha jeceshahay maadaama aad soo qabatay shaqo ay naftaada u arkaysay mid dhib ah tusaale ahaan inaad game ciyaarto kale tani waxay naftaada ka dhigaysaa inaad aragto wax ka dambeeya 30 daqiiqo ee aad programmingka ku baranayso oo waqti fiican siiso si uu hesho abaalmarintaas ka dambaysa waxaa sidoo kale qodob muhiim ah inaad waqti u kala qaybiso tusaale ahaan 30 daqiiqo ayaad baranaysaa waxaad u kala qaybin kartaa 25 minit kadibna 5 minit oo break ah ayaad qaadan kartaa kadibna halkaasi ku joojiso oo break ka sii wad taasi waxay kaa caawinaysaa inaadan dareemin daal badan waxaa sidoo kale jira qaabab kale oo effective ah oo aad ku abuuri karto caado cusub waxayna ka soo qaadanaynaa laba ka mid ah kan koowaadi waa inaad shaqadaada rabto inaad qabato ku xiriirsato caado hore u jirtay oo aad maalin kasta samayso tusaale ahaan maalin kasta markaad salaad subax soo tukato ayaad 30 daqiiqo u farsin kartaa inaad barato programmingka sidaasna waxaad ku abuuri kartaa caado cusub adigoo ku xiriirinaya mid hore u jirtay oo si maalinle ah u samaynaysay qaabka labaadi lagu magacaaba temptation bundling waana inaad caadadaada rabto inaad abuurto ku xidho mid hore u jirtay oo aad jeceshahay tusaale ahaan waqtigaad programmingka ku bixiso ayaa go'aaminaya waqtiga aad gameka ku ciyaarayso haddii aad waqtiga ku bixiso programmingka waxay ka go'antay gameka oo waqti yar ayuunbaad ciyaaraysaa sidaasina waa hab effective ah ood ku abuuri karto caado cusub gameka tusaale ayaynu soo qaadanay ee wax kasta oo waqti ku bixiso ayaad halkan ku bedelan kartaa sida Netflix oo kale muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay balse xasuusnow markaad caado cusub bilaabayso ka dhigo mid aad u fudud ood qaban karto ha isku rajayn inaad 1 ama 2 saac fadhido adigoon xitaa awooday inaad 30 daqiiqo fadhido markaad ku cusubtahay programmingka ka bilow luqad fudud iyo waqti kooban sida 10 daqiiqo kale ama 15 daqiiqo muddo kadibna haddaad aragtay inaad la qabsatay oo si fiican wado waad ka kordhisan kartaa oo 10 daqiiqo kale ayaad ku darsan kartaa sidaasna waxaad maalin kasta ku samayn kartaa horumar iyana u sii dhawaato saad ku noqon lahayd programmer professional ku ah xirfadda programmingka lowdaa muuqaalkan asxaabtaada na ilaawi inaad subscribe dhahdo channelkeena Health Tech Somali mahadsanid